waxaan ahay Cali Aadan Muumin ku soo dhawaada warka barqo ee Goobjoog TV qodobada aan idin hayno waxa kamid ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada maamulka Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Xuseen Sheekh Qaasim ayaa sheegay in wado aan sharci ahayn loo maray xilka qaadis lagu sameeyay Xuseen ayaa sheegay in maamulka gobolku uusan ka talagelin qaabka loo maray xilka qaadistiisa sidoo kalena waxa uu sheegay in aysan ba sharci ahayn oo howlaha dawladnimo marka la eego caqabad ay ku tahay qaabka loo maray xilka qaadistiisa maamulka Hirshabeelle ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii maamulka degmada Jalalaqsi iyo ku-xigeenadiisa dhanka amniga iyo siyaasadda ee gobolkaasi gaar ahaan degmada Jalalaqsi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in dhawaan ay qaban doonaan doorasho guud oo 3 kursi ah kana bannaan golaha shacabka gudoomiyaha guddigaasi Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey oo kula hadashay warbaahinta Muqdisho waxa ay sheegtay in ka guddi ahaan ay juhdi dheeraad ah ku bixinayaan sidii si degdeg ah loogu qaban lahaa soo buuxinta doorashada kuraasta ka bannaan golaha shacabka waxaana kamid ah kuraasta bannaan kursi uu baneeyay xildhibaan iscazilay oo sheegay inuu ka tanaasulay kursigiisii xildhibaannimo iyo sidaas oo kale 2 kursi oo mid kamid ah xildhibaankii hayay uu geeriyooday kana bannaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigu wuxuu ku dhawaaqayaa maanta oo ay tahay 19 Agoost 2018 in uu qabanayo doorashada boos buuxinta kuraasta ka bannaan golaha shacbiga oo ay baneeyeen ex xildhibaanada kala ah ex xildhibaan Xuseen Cusmaan Xuseen oo ka bannaanaaday kursigaasay Koonfur Galbeed ex xildhibaan Allah u naxariistay Khaliif Sheekh Cabdullaahi Dheere oo uu baneeyay kursigaas oo ka bannaanaaday Koonfur Galbeed iyo ex xildhibaan Cabdulqaadir Gaafo Maxamuud oo uu ka bannaanaaday kursigaas Galmudug saddexdaas xildhibaan oo midug geeriyooday Allah u naxariistay miduna uu asaga iskiis uga tago iska casilay midna xil qaran uu qabtay saddexdaas kursi ka bannaan golaha shacabka waxaan go'aaminay in aan soo buuxino oo aan bilaawno qabashada ergooyinka guddiga madaxa bannaan wuxuu ku balgarinayaa oday dhaqameedyadii ku jiray liiska 135 ee hoggaanka u ah beelaha ay matalaan kuraastoodaas in ay soo gudbiyaan liiska 51 ergo doorasho ee kursigiiba sida waafaqsan hanaanka iyo qoondada ku xusan diiwaangalka soo gudbinta liiska ergada sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka in ay ku soo gudbiyaan liiska ergada muddo 7 cisho gudahood ah oo ka bilaabanaysa 19 bisha Agoost 2018 kuna eg 25 bisha Agoost 2018 saacada soo gudbinta liiska waxay bilaabanaysaa subaxii 9 aroornimo ama 3 saac subaxnimo sida loo yaqaano waxay soconaysaa ilaa 9 saac galabnimo ay soconaysaa hadii Ilaahay yiraahdo ama 3 galabnimo qofba sida uu yaqaano oo aysan ku jirin maalinta Jimcaha ah sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka wuxuu ku wargelinayaa musharaxiinta u tartamaysa kuraastan inay qabashada araajida iyo diiwaangelintu ay bilaabanayso 25 bishan oo ah Agoost 2018 ayna ku eg tahay 30 bisha Agoost 2018 waxay bilaabanaysaa sidoo kale subaxii 9 subaxnimo ama 3 saac subaxnimo waxayna ku eg tahay 9 galabnimo ama 3 saac 3 galabnimo sida loo yaqaano ayadana maalinta Jimcaha ah ma tirsana aad u mahadsantihiin waxaan sugnaaba u guddigu sugaa waxa waa odayaal dhaqameedkii oo soo gudbiyay liiska ergada 25 bisha wixii ka dambeeyana musharaxiintii oo soo gudbisato musharaxnimadoodii aad u mahadsan tahay waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey oo faahfaahin ka bixinaysay qaabka ay tahay in loo qabto doorashada 3 kursi oo golaha shacabka ka bannaan midkii ugu dambeeyana uu iscazilay waxaad la socotaan warka barqo ee Goobjoog TV oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga ee magaalada Muqdisho wararka kale ee inoo soo socda waxaa kamid ah Human Rights Watch oo Ethiopia ugu baaqday in ay bariga dalkaasi ismaamulka Soomaalida Ethiopia baaritaan lagu sameeyo xadgudubyo bini'aadanka ka dhana oo laga geystay intii uu talada hayay
madaxweynihii xilka ka degay cabdi maxamuud cumar hase yeeshee markan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xilli maalmihii la soo dhaafay uu booqasho ku kala bixinayay wadamada Djibouti iyo Turkiga. madaxweynaha ayaa safarkiisii uu dalka kaga baxay ku tagay dalka Djibouti oo xurguf siyaasadeed ay soo kala dhaxgashay dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo yeeray hadalkii ahaa in loo baahan yahay in cunaqabateynta dhanka hubka ah laga qaado dowladda uu dagaalku kala dhaxeeyo Djibouti ee Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya oo goor sii horeysay booqday dalka Eritrea gaar ahaan caasimadda Asmara ayaa hadalkaasi ka dhawaajiyay dhigeeda Djiboutina war degdeg ah oo ay xilligaasi soo saartay. waxaa lagu sheegay in kalsooni xumo labada dal ay abuurayso hadalka madaxweynaha oo ay u muuqatay in booqashadiisu ay ahayd mid raali gelin ay ku dheehan tahay ayaa lagu soo dhaweeyay dalka Djibouti iyadoo ugu dambeyntiina madaxweynuhu uu uga sii gudbay markii kulamo uu la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dalka Turkiga. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xisbiga talada haya ee dalka Turkiga kulankii toddobaad oo ay qabsanayeen waxa uu kaga qayb galay shirweynahooda magaalada Ankara ee dalka Turkiga. ugu dambeyntiina maanta ayuu ku soo degay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo xubno ka tirsan ay socdaalka ku wehelinayeen markii uu joogay Turkiga ayaa wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya hadal uu sheegay waxa ku jiray in madaxweynaha dalka Gani uu booqasho ku imaan doono dalkan Soomaaliya oo uu madaxweynaha Soomaaliya dhigiisa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo booqasho kaga helay in uu booqasho ku yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. wararkaasi waxay ku soo kordhaa iyo natiijada Soomaaliya ee madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Turkiga dib ayaad ka daawan doontaan oo wararkeena kale ayaad kula socon doontaan. hase yeeshee markan wasaaradda kalluumaysiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xal rasmi ah laga gaari doono khilaaf u dhaxeeya wasaaradaha maamul goboleedyada kalluumaysiga u qaabilsan iyo federaalka. arrintan ayaa daba socotay kadib markii khilaaf muddo soo jiitamayay uu soo kala dhaxgalay wasaaradaha maamul goboleedyada u qaabilsan kalluumaysiga iyo federaalka. maxamed bishaar barre jaamac wariyaha goobjoog ayaana warbixintan ku eegaya. kulankan ayaa ahaa mid ay soo qabaqaabisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka dalka waxaana ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyadoo ujeedku kulanku uu ahaa wada hadal iyo sidii looga tashan lahaa arrimaha wada shaqaynta wasaaradaha kalluumaysiga maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalk Soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday ururada bulshada rayidka iyo hay'ado caalami ah kuwaas oo intii kulanku u socdana ka hadlay sidii loo horumarin lahaa kheyraadka badaha ee dalka Soomaaliya. Cabdullaahi Bidhaan Warsame wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka dalka oo kulanka furay ayaa sheegay in ujeedku kulanku uu yahay sidii wax badan la isaga fahmi lahaa madmadowga soo kala dhaxgalay wasaaradaha kalluumaysiga maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalk Soomaaliya isagoo sheegay in mar walba uu rajeynayo sidii loo wada shaqayn lahaa isla markaana la isaga kaashan lahaa horumarinta iyo wax soo saarka kheyraadka badda ee dalka. waxaan sidoo kale ogahay in wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee dowladda federaalka ah iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada ay ka dhaxeeyeen wada shaqayn waa la oran karaa wada shaqayntaas meeshii la rabay ma gaadhin. wada shaqayn baa ka dhaxaysay waxyaabo badan baa la soo wada qabtay heshiisyo la galay heshiisyadii la galay waxaan rabnaa dhameystirkoodii inaan ka shaqeyno haddii markii hore madmadow jirana intaan madmadowgii meesha ka saaro aan gacmaha is qabsano. waxaan idin ballan qaadayaa wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda inaan si joogto ah idinla shaqayn doono taladiinana aan u baahannahay si daah furanna aynu u wada shaqaynayno haddii la haydno. cid kasta oo kalluunkeena rabta waxaan rabnaa sidii laga sheekeeyey maadaama aan leenahay xeebta Afrika ugu dheer welina aan ka baahannahay waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno sidii aan uga faa'iideysan lahayn si aynu arrimaha uga faa'iideysano uga wada shaqaysanana waxay u baahan tahay midnimadeena iyo wada jirkeena. haddaba si aynu arrimahaas ku gaadhno waxaa loo baahan yahay dhowr arrimood inaynu si wada jir ah uga hortagno kalluunka sharci darrada ah ee lagala baxo badaheena inagoo taabagelinayna shuruucda dalkeena u taala. waxaa inagu filan sharciyada inoo yaalla kaliya inaynu ku dhaqanno si aanay u dhicin in kalluun si sharci darra badeena looga qaato.
qaar ka mid a wasiirada ka socday maamul goboleedyada dalka oo iyana kulanka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in mar walba ay rajeynayaan isbeddelka cusub ee wasaaradda kalluumaysiga dalka inuu horseedi karo wada shaqayn iyo weliba in la gaaro horumar dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo laga faa'iideysanayo kheyraadka ku jira badaha Soomaaliya. kalluumaysiga waxay leedahay sharci kalluumaysi run ahaantiina sharcigaas sharci wuxuu ahaa waqti horena la sameeyay una baahan maaragtay in si isla shaqayn mudan oo dhameystiran loo dhameystiro waxaan filayaa inuu yaalo golaha wasiirada oo ay ahayd in maaragtay la baasiyo waxaan isleeyahay wasaaradda kalluumaysiga iyo wasiirka cusubna ka codsanaya in maaragtay si haddii shaqo la qabanayo shaqo kasta waxaa base u ah sharciga haddaan waxa sharci ilaalinaya oo muxuu ahay taxadidaya uusan jirin macno ma yeelanayaan wixii la sameeyaa sidaas darteed sharciga wasaaradda kalluumaysiga waxaan annagu isteedyadu diyaar u nahay qaabka ugu habboon oo ugu wanaagsan oo dhammaystiran in aanu u wada sameyno taa macnaheedu ma aha inaanu noqon doono isteedyo murmo oo qabsada sharciga hareeraha ku dhego oo maaragtay waxaan loo baahnayn keena isteedyada macnaheedu waxa weeyaan runta markii la sheego dowladda federaalka waa lugaha ay ku taagnaan karto waxaan rabnaa dowladda federaalka inay noqoto mid taagnaata oo maaragtay taagnaata marka annagu lugaheeda ma fukinayno ma kufinayno ma ridayno waxaan rabnaa inay sina anfacda Soomaaliya oo dhanna anfacda inay maaragtay u shaqeyso si kasta kulankan oo mid soconaya muddo 2 cisho ah kuna eeg maalinta biri ah ayaa waxa dhinacyadu ay isla garteen in la xoojiyo wada shaqaynta labada dhinac iyagoo sheegay in ay rajeynayaan in qodobo muhiim ah oo isku afgartaan ay ka soo saari doonaan kulanka dhawaan ay ahayd markii wasiirada maamul goboleedyada dalka kulan ay ku qaateen magaalada Kismaayo ku soo saareen war qoraal ay ku sheegeen in xiriirka u jireen wasaaradda kalluumaysiga maxamed bishaar bara jaamacad buu mahadsan yahay oo wasaaradaha kalluumaysiga ee maamul goboleedyada iyo federaalka heshiiskooda nala socodsiinayay goortii horeysay waxaa soo baxay khilaaf la xiriiray in wasaaradaha maamul goboleedyada ee kalluumaysiga u qaabilsanay xiriirka u jireen wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda federaalka taas ayaana keentay in ugu dambeyn Muqdisho lagu qabto heshiis isafgaradana la gaaro warka barqay ee Goobjoog TV ay la socotaan meel kasta joogtaana maalin wanaagsan warbixin ay maanta soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa dowladda federaalka ee Itoobiya waxa looga dalbaday in baaritaan dheeraad ah ay ku sameyso bariga dalkaasi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xadgudubyo ka dhacay intii uu talada deegaanka hayay madaxweynihii xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa sheegaya in baaritaan dheeraad looga baahan yahay madaxweynihii hore ee maamulkaasi in lagu sameeyo hab maamulkiisii Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxdii booliska ee Liyu booliska loo yaqaanay gaar ahaan hogaankii ciidamada Liyu booliska Cabdiraxmaan Cabdillaahi Buraale Agoos 6/2018 ciidamada Liyu booliska iyo dhalinyaro u daacad ah Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii dowlad deegaanka ee talada laga tuuray ayaa la sheegay inay weerareen dad ku nool Jigjiga iyaga oo dil ka geystay hantidoodiina gubay si wixii dhacay loo ilaaliyo loona baaro dowladda waxaan ka dalbanaynaa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Human Rights Watch in ay baarto bariga dalkaasi gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya intii talada uu joogay Cabdi Maxamuud Cumar xadgudubyadii laga geystay oo xuquuqda aadanaha ka hor imaanaya warkaasi waxa uu ka soo baxay maanta hay'adda qaxootiga Human Rights Watch oo iyadu arrinkaasi Itoobiya u soo jeedisay dhanka kalena wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku soo gabagabeysay shir wada tashi ahaa oo looga hadlayay hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaa ka qayb galay oo kulanka maalinkiisii labaad uu ahaa ujeedku in lala kulmo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan iyada oo lagala tashanayay sida ay tahay in loo amba qaado qaabka dib u heshiisiin guud dalkan looga hirgelin karo Cabdiwahaab Maxamed Ibraahim wariyaha Goobjoog ayaa kulankaasi ka qayb galay warbixintana ka diyaariyay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maalintii labaad qabatay shirka wada tashiga diyaarinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo lagala tashanayay maanta bulshada rayidka مسؤولين كسعودي برشاد ريد كا يو حبنا كسعودي وزارة ده رمها جودها يا كقب قلي شركة
wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cabdulaahi Faarax Weyliye oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in ujeedka laga leeyahay uu yahay ilaa December in ay soo dhameystiraan wada tashiyada hanaanka dib u heshiisiinta qaran kadibna la qaban doono shirweyne dib u heshiisiin oo qaran oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka soo qayb gali doonaan. waxaan loo qorshaysan haddii Ilaahay raado hanaankan inaan soo afjarno bisha December sanadkan haddii alla yiraahdo markaasoo shirweyne weyn aan qaban doono oo aan isku keenayno dhammaan ummadda intii ka soo qayb qaadatay iyo intii kale fursad u heshaba taasoo lagu validate gareyn doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaal Soomaaliya mushkiladeeda asaasiga ah waa dhibaatooyin annagoo aan isku geysanay dhibaatooyinkaasoo cid walba saameeyay oo meesheeda ugu tagtay halkeedana waxaa laga gaari karaa annaga un baa gaari karnaa meel kale lagama soo heli karo. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo kamid ah ururada bulshada rayidka ayaa isna halkaasi ka sheegay in muhiim ay tahay in dib u heshiisiin dhab ah la helo taasi oo wax badan ka qaban karta isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed. يعني إن نبضين كشقيدو waxa aasaaska u ah waxa waaye inay jirto karti haba yaraatee aad wax ku xallin karto karti aad wax ku xallin karto inay jirto waaye nabaddu markaas ay imaanayda kartidana maalin lama wada yeeshee waxa weeyaan mudday soconaysaa muddo dheer ay soconaysaa marka anigu waxaan qabaa waxa weeyaan dadaalkan wasaaraddu wado hal shay oo kale oo yarna lagu daro in khilaafyada jira qaarkood la xalliyo qaarkood in la xalliyo si ay u noqoto muxuu ahaa cashar hore loo baranayo horena loogu socdo gadaal loo fiiriyo la dhihi karayo shalay meeshaas la joogay maanta meeshaas la joogo sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marka ay soo dhamaato wada tashiyada bulshada ay la qaadanayaan waxa la qaban doonaa bilowga sanadka soo socda shirweyne dib u heshiisiin qaran. Cabdulaahi Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho. waagaag warka barqada ee Goobjoog TV ay la socotaan meel ka soo joogtaan maalin wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay. qodobada kalena waxaa ku jira taliska hay'adda dambi baarista CID-da ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay in xabsiga la dhigo xubno ka tirsan maamulka dekedda Muqdisho. Anfac Daahir ayaa ka waramaysa. taliska hay'adda dambi baarista CID-da ee booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababaha keenay in xabsiga la dhigo 10 xubnood oo ka tirsan kastamka canshuuraha dekedda Muqdisho. Kusimaha taliyaha hay'adda dambi baarista CID-da Bishaar Abshir Geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xubnaha lagu eedeeyay musuqmaasuq isla markaana la soo xiro uu amray xafiiska xir ilaalinta qaranka. Dhanka kale Jenaraal Bishaar ayaa sheegay in xubnaha haatan gacanta lagu hayo ay gaareen 6 ruux isla markaana la baadigoobayo 4 kale oo gacanta lagu soo dhigi doono dhawaan. oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 8 2018 waxaa na soo gaaray warqad eedeysanayaal runtii xiraarintu ay amartay in lagu soo qabto eedahaas loo haysto ah dadka eedda loo haysto ah 10 ruux 10kaas ruux qaarna waxay ku jiraan gacanteena kuwa kaleetana mar dhow waxaan rajaynaynaa inay ayaguna gacanta soo galaan dadkaas 10 qof waxay ku eedeysan yihiin qodobada halkan ku cad oo kala ah qodobka 366 368 370 iyo 70 240 iyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanayaashaas sida uu sheegay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha hadda waa eedeysanayaal eedda loo haysta haddii ay ku cadaato yani waxay isu bedelaysaa dembi bay isu bedelaysaa laga galay dalka iyo dadka. intaas waxaan ku darayaa sida ay horay ugu baaqday madaxda xukuumadda dalka oo ay yani ku daahfureen hadalladoodii ugu horeeyo ahaa in lala dagaalamo musuqmaasuqa xatooyada xoolaha dadweynaha iyo xoolaha dowladda runtii ayay daba socotaa arrintan waxaan rajaynayaa inay noqoto tusaale qof kasta oo uga fogaado
xatooyada xoolaha dadweynaha iyo hantida qaranka intaba. Bishaar Abshir Geedi waxa uu sheegay in ciidamada CID-da uu fulinaya amarka xeer ilaalinta ay xireen xubnaha uu sheegay in lagu hayo kiisas cadcad oo musuq ah. Hantida qaranka iyo canshuuraha dadka shacabka oo masaakiinta laga aruuriyo looguna talagalay in loogu adeego dawladnimada. Waxaan uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay arrintaas ka fogaadaan. Waxaan laga hari doonin kuwa badan oo sidaan oo kale loo tiirinayo inay falkan iyo falal ka xoogan ku dhex jiraan oo musuqmaasuq lug ku leh. Runtii annaga ka ciidan bulus ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay arrintan ka soo yeertay xukuumadda madaxda ugu sarreysa oo ah in la ilaaliyo maalka ummadda Soomaaliyeed, sharafkooda iyo naftooda. Arrintaas qodobada annagu aan ku dhisano ku taagano ku tiirsano ku shaqeyno waay. Marka waxaad moodaa in codka ka soo yeeray madaxda ugu sarreeya dalka ee annaga qaanuunka aan ku shaqeyno inay iswaafaqeen. Marka waxaa sahlanaan doonta in cid kasta ay timaado inuu sharcigu ka weyn. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday dagaal xoogan oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa waxaana dhawaan siyaabo kala duwan loo xiray mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda oo loo haysto musuqmaasuq. Anfacdigan Aadan Cabdi Goobjoog, Muqdisho. iyo saraakiil ka tirsan dowladda oo loo haysto musuqmaasuq. Anfacdigan Aadan Cabdi Goobjoog. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in guule ay ka gaareen in la heshiisiyo beelo ku dagaalamay qaybo ka tirsan gobolkaasi. Heshiiskan waxaa si wada jira garwadeen uga ahaa maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi ayaana ka soo diray Beledweyne. maamulka gobolka Hiiraan ayaa dib u heshiisiin u sameeyay laba qabaa'il oo wada daga gobolka Hiiraan kuwaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay iska qabsi dhinaca dhulbeereedyaha u ka dhaxeeyay. qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac ayaa warbaahinta uga hadlay heshiiska la dhaxdhigay iyo waliba waxyaabaha ay go'aanka ku gaareen. waa ku mahadsan yihiin arrintaasi odayaasha naga ogolaaday. waxaan hadda qaadanay 4 bilood إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم وحنا إلهي كرجينا سيدي هركل أي نقولين أي نوفذ ذاته أفر بلاد كهرب أي هل كان إنه قد ما تهوشاس أيده أيان رت إلهي كبرينا تاس ومد اللي بعده حتى أضياشة معمولك وهو القلي هوشاني أنت سوق جب يسوي ويكون هاتشيهين إن بيشاس لبكاس وقبت بيش مكانه لجنا دلي يبرديه maanta waxaan ku soo ururinay aan soo fariisinay in aan 4 bilood hor la qaadano 4 biloodna waana ka ogolaaday. wuxuu ka bilowday 2 nin oo xaajiyaal oo lagu dilay meesha la yiraahdo Leebow. nimanka walaalahayna waa ballanay duugtii iyo karfantii iyo hadaan la ku diidin waxbaan ka qaadnay waa ballanay 6 bilood muddahan kala qabsanay 6 bilood waa suuro gali waysay hada tacaddi weyna dhacay haddaan la ku difataad iyo haddaan abaaraha dhacay adigu haddii xoogaa warka uu sii xumaana waxaa dhex galay maamulka gobolka dhex galay iyo degmada ayaga inay iska keen hor keenan suuro geliyay halkaan maanta aan ku wada sheekaysano waxaan go'aansanay marka maanta inay nimankii walaalaha ay makanne ay dib u qaataan 4 bilood oo hadda kadib ah magtii labadaas xaajina ay ku keenaan. waxaan maanta aan u fariisanay inaan mar labaad muddadii cusboonaysiino walaalaheen oo aad iyo aad aan uga mahad celinayno waxay noogu dareen muddo 4 bilood in magtii walaalaheen aan dilnay muddadaas 10 bilood ka hor inaan 4taas bilood ku soo bilowno wixii lagu heshiiyey waana qaadanay. waxaa lagu wada heshiiyey labada dhinac beesha iyo bardiga iyo beesha reer Makane in muddo 4 bilooda ay magtii muxuu ahaa qaybaheedii hore ku bixiyaan. beesha iyo bardigana waa ka aqbaleen Makanana warkaas uu soo jeediyey
gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufrow oo isagu soo qabanqaabiyay dib u heshiisiintan ayaa labada beelood ugu baaqay in waxyaabaha lagu heshiiyay la dhaqan geliyo. marka hore ayadoo laga turjumayo siyaasadii ku aadanayd in beelaha dega maamul goboleedka Hirshabeelle in dib u heshiisiin dhab ah oo ballaaran oo salka laga soo tolo loo sameeyo ayaan waxaan aad ugu mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ama waqti gelisay in maanta ay qabsoonto gooshaan oo ah kulankii afraad oo lagaga wada hadlayay dhibaatadii ka soo bilaabatay isqaqabsigii dhulbeereedka ee laga dhaxlay in lagu dhinto ee muddada halka sano ee dhow ee gacanta lagu la jiray xalinteeda iyadoo maamulka annaga naga horreeyay ay dib ay hore u sii bilaabeen sida odayaasha dhaqanka labada dhinac iyo maamulka hadda jooga ee saraakiisha amniguna ay qireen in laga ballamay wixii la isla meel dhigayna muddadoodii aan waxba lagaga qabanin duruufo jira awgood markii 6 bilood ay dhamaatay 3 kalena duruufta jirta awgeed ee muddo dhaaf ay ku soo dhaaftay intii garatay inaan dib dambe dib u dhicin ee isxakamaysay ee la soo xiriirtay systemka iyo maamulka iyo intii soo ajiibtay ee inay soo jidbaxdo ilaahay garadsiiyay waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaad ku toosnaateen waajibkii idin saarnaa ee muqadas ahaa ee dalka iyo deegaanka idin ka saarnaa odayaasha dhaqanka labada beelood waxaan mar kale si khaas uga mahad celinaynaa kan waa heshiiskii balanta 4 bilood ahaa ee aan ku kala qaadanay aad u mahadsantihiin ilaahay adiga ku soo fuuday adigana insha Allah dadkaaga iyo deegaankaaga baashada Allah ka dhigo kuwa wax ka maqla ee muddadaas walaaladu wax uga soo sahlo iska qabsiga dhulbeereedyada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee ka dhex taagan dadka ku nool gobolka Hiiraan kuwaasi oo marmarka qaarkood ay ka dhashaan gacan ka hadal sababa dhimasho iyo dhaawac. Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi, Goobjoog TV, Bradweyne. qaybihii ugu dambeeyay ee wararka Goobjoog TV ayaynu ku guda jirnaa ee warka barqo dibadda hadaynu eegno shabakada CNN Turkey ayaa sheegtay in xilli hore oo saaka ah laga maqlay wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay rasaas aad u xoog leh xabadahaasi oo laga riday gaari marayay wadada safaaradda ayaa haleelay fariisin ay lahaayeen ciidamada amniga safaaradda Mareykanka ee Ankara balse aysan sababin wax dhaawac ah xiriirka Turkiga iyo Mareykanka ayaa sii xumaanayay isbuuciyadii la soo dhaafay xilli uu jiro khilaaf dhanka ganacsiga iyo diblomaasiyadda ah oo u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Mareykanka kaas oo sii adkaaday oo ay sii adkeynayso dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Turkiga. Dowladda dalka Turkiga ayaa diidan in ay sii deyso xog uu Mareykanku doonayo in la faafiyo oo uu gacanta ku hayo dalka Turkiga. wararkaasina waxay la xiriiraan in falal argagixiso ay ka jiraan dalka Turkiga iyadoo saameyn ay ku leeyihiin saameyn amniin ay ku leeyihiin dalka Mareykanka. dhanka kale lacagta liirada la yiraahdo ee laga isticmaalo wadanka Turkiga ayaa lumisay in ka badan 35% qiimaheeda marka loo eego dollarka tan iyo bilowgii sanadkii 2018 taas oo sii xoojinaysa xiriir xumada u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Turkiga. guud ahaana daawadayaal intaas waxaa ku eg warkii barqo aad kala socoteen Goobjoog TV anigoo Cali Aadan Muumin ayaana halkan idinkaga waramayay asxaabta kale ee farsamada ku jirtay inagoo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.